waxaa maanta magaala madaxda gobolka Sanaag ee Cerigaba aas qaran loogu sameeyay Allah u naxariistay marxuum Suldaan Cabdulaahi Cabdi Koor oo kamid ahaa madax dhaqameedka gobolka Sanaag ee howlaha nabadgelyada u joogay deegaanka degmada Ceelaf Weyn. aaska marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan, gudoomiyaha gobolka Sanaag, madax dhaqameed iyo bulshada magaalada Cerigaba. salaadii tukashada janaasada kadib ayaa marxuumka dhamaanba mas'uuliyiintii iyo bulshadii ka qayb qaadatay aaskiisa ay ku sifeeyeen daacadnimo, dulqaad, hadal wanaag iyo samafal. waxaana marxuumku u geeriyooday shil gaadhi oo ka dhacay deegaanka Ceelaf Weyn. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. أنا كهالله أفكر مدحوينها. ورنتي صوت جري وفد بلارن. وككوبن قلها وسير هذا. قلها دقنك. يسراكي شكرنك. وساك كوكلا سجن قبل كالسناجي قبل كسرار. waxaan tacsiyad qaran u dirayaa eheladii iyo qaraabadii dhammaanba ay ka geeriyoodeen saddexda shahiid oo suldaanku ugu horeeyay iyo labada sarkaal oo dhammaantoodba ahaa adeegayaasha qaranka oo suntanaa oo huwanaa horumarinta nabadgelyada iyo hanaanka dimuqraadiyadda iyo shacabka Soomaaliland. waxaan ilaahay uga baryayaa suldaanka iyo saraakiisha in ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo. raajicuun Allah u naxariisto Suldaan Cabdulaahi Cabdi Koor wuxuu ahaa shakhsiyad ku geeriyootay 2 sano dhexdood. sulx uu ka tagay oo Ceelaf Weyn ku hayay oog baanu soconay sulx kalaanu soconay. waa maqaam inta heshaayadu yar tahay. waxaan hubaa 8 bilood oo dambeeyay ninkaas uu shaqaan sulx ahayn iyo dadka isu soo dhaweyntooda kama shaqeeynin. ilaahay misaaska xasanaadka ugu daro ku dayashada waxa oo islaama shakhsiyad cibaadadiisu ay joogto tahay oo aan marnaba masaajidka la saaxiibo masaajidka iimaankiisu ku xiran yahay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul maut. ilaahay waxaynu weydiinaynaa marxuumka Suldaan Koor inuu naxariisto dambigiisana dhaafo. ummadii ehelka wahayd dhammaantoodna samir iyo iimaan ka siiyo. ummadda reer Sanaag oo dhan iyo reer Soomaalilandba inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo isagana ugu deeqo jannadii aynu ilaahay weydiinaynaa. الموت Suldaan Cabdulaahi Cabdi Koor oo aaskiisii aynu taaganahay waxa sheegay maamulka gobolka iyo garaadada iyo sulaadiinta iyo xuqaasha wuxuu ahaaba sheegay ilaahay taxariista jannaha ka waraabiyo inagana samiriye iimaan naga siiyo eeladii iyo qalaabadii iyo asxaabtii uu ka tagay ilaahay samiriye iimaan ka siiyo. waxaan kaloo taxsiin u dirayaa saraakiishii ciidanka qaranka oo uu isaguna gurmad u ahaa oo aanu shalayto xalay ku aasnay oog. raajicuun waxaan halka tacsi uga diraynaa uga ducaynaynaa Suldaan Cabdulaahi Cabdi Yuusuf ilaahay naxariista janno ka waraabiyo. camal wanaagsan buu ka shaqeynay islaax been naas buu ka shaqeynay ilaahay hawa aqbalaban leen. ninkii ugu dambeeyay ee uu la hadlaa baan ahaa wuxuu igu yiri abti bal waran baan idhi waa nabad buu igu yiri. wuxuu igu yiri abti isaga oo gurmadka ku jira saraakiisha halka lagu laayay waan babaxaya ayuu igu yiri intuu gacan qaaday abti nabadda ha la adkeeyo. aniguna isaga ayaan dhinac socday waa naga yara horeeyay 7 kiiloomitir meel u jira haddana gaariga kula dhacay meeshii aan joogay. waxa ii xigtay suldaankii nabaddu wuu dhintay ehlu jannu ahaa nabad buu ka shaqeynayay wuxuuna ahaa kuna suldaankii nabadda. suldaanka waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto qabrigan Allah u waasiciyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. runtii waxaan qirayaa inuu ahaa nin nabadeed nin ahlu diin ah. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo isagana jannada firdawsa ilaahay ugu deeqo. waa sida la sheegay sida uu ka shaqeynayay intii ugu dambeysay degmada Ceelaf Weyn iyo nabadeyntu kaga jiray waa la ogaa.
si khaasna waanu isugu xidhnayn ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jannatul firdaws al-a'la ka waraabiyo dembigiisa dhaafo man joogna geeridii suldaan cabdullaahi suldaan koor samir iyo iimaan dhammaantay eelkii qaraabadu ka tagan aan samir iyo iimaan anigu waxaan marag uga ahay ramadaanteedii kowdii ramadaan aniga iyo caaqilka iyo isaga iyo guddi aanu ku jirnaa waxaanu u soo baxnay hawlo nabadgeliyo halkii uu maalintii ka bilaabay ramadaantii kale waa 5 cisho 6 cisho ka hadhay ninkaas wuxuu shaqaystay janno taariikhdiisa wuxuu dhashay 55 buu dhashay ximan gareen buu ku dhashay halka ximan gareen xigta buu ku dhashay Allah yarxama waxa la boqoray kun iyo 12 baa la boqoray inta la boqoray wuxuu ka shaqeynayay nabadda ilaahay ha u naxariisto baan leenahay sida la sheegay suldaan cabdullaahi cabdi koor anigu abti baan ah walaashay baa dhashay sida dadku ay ugu fureen inuu nin wanaagsan ahaa ayuu ku suntanaa runta marka la eego suldaanku wuxuu ahaa nin quluub wanaagsan oo dadka iska cafiya oo dadka urka aan waxba uga qaadin kala colkaayo ka kale waxaan leenahay ilaahay ehelkii iyo qaraabadiina ha ugu bedelo samir iyo iimaanna dhammaanteen baa inaga sii waa Jaabir Saciid Ducaale Jaabir Bulshaawi Kalsan TV Cerigabo